maamulka degmada Warta Nabadda oo ay hogaaminayso gudoomiyaha degmada Warta Nabadda Marwaseene Maxamuud Warsame Xabsi ayaa deeq gargaar gaarsiisay dadka barakacyaasha ee ku dhaqan degmadaasi kuwaas oo saameyn ku yeeshay roobabkii mihigaanka ah ee ka daay dalka qaybo badan oo kamid ah gaar ahaan magaalada Muqdisho. deeqdan gargaarka oo ay degmada Warta Nabadda gaarsiisay dadka barakacyaasha ayaa ka koobneed bustayaal, teendooyin iyo agabyo kale oo loogu talagalay in lagu caawiyo dadkaasi ku dhaqan kaamamka ku yaala degmada. qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay deeqdaasi gargaarka ah ayaa uga mahadceliyay maamulka degmada Warta Nabadda deeqdani ay soo gaarsiiyeen. gudoomiyaha oo aanka oo Warta Nabadda Seenab iyo maamulkeeda intaan gurmudeen oo ilaa koona arday meeli oo darbahan dumi awlaadan dhaawac xun iyo waldhamid iyo dhaawac naqdeen eedan rafaadni biyahan daadeen ilaahay ayaan garabna si yaan eeda garabna si gudoomiyadan hami geewan teeganta ilaahay ha dhoor yaan Allah badbaadi adaawadan Allah ka qobada ana magaaga iiday isaga suureen aha oo ku nool Warta Nabadda oo maadaama deganahay buushashka kaamanka aan deganahay darbi nugu soo dumay haddana waxaan nacaawisay gudoomiyadeena Seenab Axmed Maxamed oo nacaawisay khayr Allah siiye iidan Ilaahay noo soo badbaad had Ilaahay noo soo celiyay meesha ay meel ka dheer u filayna waxaan la sii deentooyin iyo shandarwadi oo kaneecada iyo maryo busto ilmaha u hugsano waxaan ugu rajaynaynaa iidan Ilaahay meel ay meesha ka dheer Ilaahay oo waafi Ilaahay gaarsiiyo anagana marka iidan Ilaahay wax soo siiyo noo soo qaada anagana aan markaasna caabinaysa. gudoomiyaha degmada Warta Nabadda Seene Maxamuud Warsame Xabsi waxa ay tilmaamtay in maamulka degmada iyo maamulka gobolka Banaadir ay ka go'an tahay garab istaaga dadka barakacyaasha sida ay uga mid noqon lahaayeen bulshada deegaanka. bismillaahir rahmaanir rahiim waxa maanta sharaf weyn inoo ah Allah subhanahu wa ta'ala nooga mahadinaynaa in maanta aan soo gaarsiinay gargaarkii ugu horeeyay gurmadkii ugu horeeyay dadkii roobabku waxyeeleeyeen kuwaas oo ku wada dhaqnay guud ahaan degmada Warta Nabadda qaar badan oo guryahooda uu ku soo dumay qaar maxaa la yiraahdaa biyihii maxaa la yiraahdaa guriyada dadka uu galay dhamaantood waxaan ka soo kala aruurinay waaxaha kala duwan ee degmada saas darteed halkaan aan isugu keenay anagoo halkaan gargaar kale maamulka gobolka anagoo kaashanayna iyada qadar jaarati aan ilaa iyo qoysas 100 gaar ay halkaan isugu keenay oo ku siinay maxaa la yiraahdaa teendooyinkii ay dhisan lahaayeen teendooyin casri ah bustooyinkii kaneecada waxay ka gali lahaayeen intiba musqulahoodii dhamaan wixii loo wada sameeynayo u gargaaridda gurmadka waajiba inaga wada saaran shacabka masaakiinta ah ee roobku waxyeelay annagana inaan daaraha jiifno ayaguna ay biyaha dhex jiifaan ma ahana wax cadaalada. Nuur Saciid Taaliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.